السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maxaan rabaa maanta inaan ka hadlo. maanta waxaan rabaa Soomaaliyeey inaan ka hadlo. waxaa gabar aan dhalay oo yar oo teenager ah ay i tustay video gabar yar oo I think iyadana ah teenager oo maxaan ku iraadaa wadamadan Yurubta ah waxaan u malaynaa Canada inay ku dhalatay oo ku kortay. sorry Yurub ma aha, Canada ay ku dhalatay oo ku kortay. meeshana waxay ahayd sida ay ii sheegtay Canada waxay ahayd airport laga dhoofayo oo iyadii hooyadeed iyo walaalkeed ay ka dhoofayaan. marka waxaan rabaa in aan qisadaas wax ka iraahdo. waxaan rabaa in aan maxaan ku radaa uga mahad celiyo gabadha yar dadaalka ay samaysay oo ku ahaa waajibka. maxaan ku iraahdaa waxaan rabaa inaan iraahdo waxa weeye gabar geesiyad ah. she is a hero and a smart girl wallahi. waxa weeye waa gabar geesiyad ah oo caqli badan. waxa weeye Soomaaliyey waa iska soconaa. waxa weeye waxaan nahay maxaan ku iraahdaa Allah wato wehel uma baahna. horta waa run oo cid walba Ilaahay baa wata oo Ilaahay wehel aan ahayn oo maxaan ku iraahdaa la weheshadaa ma jiro. waxa weeye cid walba Ilaahay bay wehel u tahay. laakiin haddana waxa weeye wadamadan aan joogno Yurub iyo America waa xumaadeen sidii hore ma aha. hadda ka horna waan ka soo sheekeeyay madowga dadka madow in ay maxaan ku iraahdaa mar walba ay smartphone ay isdaba wadaan. marka Soomaaliyey waxa weeye annaguna waxaan nahay madow, waxaanu nahay dad maxaan ku iraahdaa qaxooti ah, waxaanu nahay dad weliba islaam ah oo muslim ah. marka waxa weeye waxaa loo baahan yahay in mar walba aad wadataan sida Black Americanka ama African Americanka smartphone aad mar walba iska duubtaan. adduunka safe ma aha. waxaan u jeeday airportka gabadha yar wiilka ay ka dhigayso oo ka riday maasha Allah tabaaraka Allah. waxay haysatay smartphone ay ku duubaysay, way la dooday, way ku qaylisay. maxaan ku iraahdaa runtii waxaan leeyahay well done habar yar ama eedii habar labadaba ku noqon karaa. waxaan ku leeyahay khayr Allah ku siiyo. ilaahay maxaan ku iraahdaa caqligaaga ha ku saayidiyo. gabar caqli badan baa tahay, geesiyad ah, sharciga kala taqaana. marka waxa weeye maasha Allah tabaaraka Allah. ilaahay ha noo kaa daayo. waxaan u baahannahay adoo kale geesiyad ah in aan helno geesiyaal badan oo wiilal iyo gabdhaba leh. waxaan u jeeday 5 nin oo cadaan ah oo boolis ah oo dharkii dresski booliska labisan oo wiilkii yaraa ku soo haliilaya oo ku soo qarqaraya ku soo cararaya oo maxaan ku iraahdaa dhag la qabtaba aan lahayn oo rabo maxaan ku iraahdaa inayba kaxaystaan oo xiraan without reason bay rabaan inay ku kaxaystaan oo ku xiraan dambi aanu lahayn ay dusha ka saaraan iyo wax uusan shaqo ku lahayn. waxay ku qasbayaan maxaan ku iraahdaa sawir. waxay ku leeyihiin sawirkan sow adiga ma aha. wuxuu leeyahay aniga ma aha. waxay leeyihiin ma taqaanaa. markaasuu leeyahay ma aqaan. markaas waxay leedahay gabadha yarta waxba ha dihin. Soomaaliga ku yara adag waxba ha dihin. iska aamus adiga aamus maasha Allah tabaaraka Allah. ilaahay caqliga ha ku daayo. ilaahay dhiigga ha ku daayo. waxay ahayd gabar dhiig badan oo damiir leh. waxa weeye hooyada way baqatay. runtii hooyada inay baqado ma ahayn. waxaa la rabay inay wiilkeeda ka ridato iyadana dhinac dagaalka ka gasho. waxa weeye badanaa runtii dadkeena waaweyn oo ayagoo waaweyn Yurub iyo Mareykan yimi way baqaan. waxa ay la baqayaan ma garanaysid ayagoo xaqoodii ku taagan mararka qaarkood xaq
ku taagan oo sharciga wadankan Yurub iyo Ameerika ay degsadeen aanay ku xadgudbin bay haddana baqaan in la baqa ma aha Soomaaliya haddii aydan xataa luqadda aqoonin waxa weeye sharciga barta sharciga turjunta sharciga akhriya maxaan ku irahdaa turjumaan ma weynaysaan caruurtiina xataa idin turjumaysa sharciga wadanka waa turjuman kartaan google-ka gelin kartaan markaas turjumaada heli kartaan iyadoo Soomaali ah marka xaqiina adinkoo ku taagan baad baqataan I know waxa arkaysa dad nin xuno Asian ah UK uu gumaysanayo oo maxaan ku irahdaa guri intay ka kireysatay iyadoo xaq ku taagan iyadoo sharciga kaga toosan tahay oo maxaan ku irahdaa ay sharci ku taagan tahay oo maxaan ku ayna ku xadgudbin sharciga oo ayna ninkaas ku xadgudbin ay guriga ka kireysatay haddana lagu xadgudbaayo oo haddana aamusaysa oo aanay waxba oran karayn marka Soomaaliya baqdinta iska daaya adinka waa isu xoog badan tihiin idinka waa isdishaan idinka waa iscaydaan idinka waa isu boolo xooftaysaan dadka kale si waad ka baqdaan maxay fulaynimada intaa la eg ma wanaagsana waxaad xaq u leedahay oo xaqa uu ku siinaya ay wadankan degsadeen adiga wadankan haddaad ku nooshahay Yurub iyo Mareykan haddaad ku nooshahay xaqa aad leedahay waa inaad raadsataa waa inaadan ka baqin booliska waa inaan laga baqin booliska haddaad xaq ku taagan tahay ha ka baqanin waad la doodi kartaa waad duubi kartaa sida gabadha hiirooga ah geesiyada ah ee Soomaaliyeed ee walaalkeed ka ridatay maxaan ku dhahay cadowgii soo weeraray iyo booliski malihi boolisku waa cadow laakiin ayaga kalor ahaan ayay u raadsanayeen waa calashaan madow waa muslim dambi bay xirmeen inay dusha ka saaraan xabsina saa u geeyaan hadday markii kaxaysan lahayn lama arkeen wiilkaas lama arkeen xabsi bay geyn lahaayeen haddii xataa wax ay ku waayaan waqti bay qaadan lahayd inuu meesha ku sii jiro imisay sameeyaan Ameerika dad khalad ah ay xiraan oo sanado meesha ku abaada xabsiga oo ku jira ka waran oo dhibaato ay u geystaan marka waxa weeye madow haddaad tihiin waxa weeye ha la is ilaaliyo qaxooti waliba tihiin Soomaali tihiin muslim tihiin is ilaaliya waxa weeye wadamada aad joogtaan waxaa la leeyahay waa dimuqraadi waa xor ma aha xor ma tihid ninka cad lama mid ihid gabadha cad lama mid ihid waxa weeye sharciga Ameerika iyo Yurub uu ka hiilinaya hamoodinina inuu isku mid aad u tihiin chance yar ayay kugu raadinayaan hadday ku helaana waa bes waa ku dhamaatay marka waxa weeye walaalayaalo sharciga ay degsadeen runtii maxaan ku dhahay markaa wax proof haysatid kali ah ayaad la gorgortami kartaa la dhiiltami kartaa ku dacwoon kartaa laakiin haddaadan proof haysan waxaad noqonaysaa dameer baktiyey ama waxaa noqonaysaa nin madow oo de la iska xiro lagu xareystay marka de arintaada waxay noqonaysaa maxaan ku irahdaa ilaahu adaa xaalkaaga og marka waxa weeye walaalayaalow waxa weeye proof saa u heshaan waa inaad mar walba smartphone-kiina uu idin dhow yahay waa inaad soo dhawaysataan waa inaad mar walba digtoon tihiin oo meel dhow uu idinku jiro smartphone-kiina telefonkiina gacanta waa inaad duubtaan wax kasta dhici kara waa inaad duubtaan haddii la idin soo weeraro haddii boolis idinku soo xadgudbo sidii gabadhaan yarayd waxa weeye gabadhaan yar evan way la hadasha way ku qaylisa waxay tiri booliska nambaradiina waa duubay tiri magacyadiina maxaan ku dhahaa waan duubay bay tiri waxay tiri natusa markii u dambaysa waxay tiri markay sii daayeen wiilka ka fureen maxaan ku dhahaa jeebadii gacmaha uga xirnay laba dib lay u xireen way ka fureen markaas waxay tiri magacyadiina waxay tiri itusa sharcigiina itusa sharciyadiina sharciyadii bay soo bixiyeen ayagoo come down ah way tuseen marka waxay og yihiin hadday ku hesho dambi in ay shaqadooda ku waayi karaan in ay dambi geli karaan
marka waxaa weeye waddankan sharcigaa dadka kala ilaaliya laakiin haddana waxaa weye haddaadan proof haysan oo aad madowna tahay muslimna tahay ilaahay ha kuu naxariisto marka mar walba waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waa inay smartphone-kood soo dhaweystaan anytime ayaa wax kasta dhici karaan dariiqa jidadka meel kasta waa inaad soo dhaweysataa waa inaad duubtaa suu kugu noqdo hadhow proof ama makhraati uu kugu noqdo videogaas marka waxaa weye gabadhaa yarta waxaan leeyahay geesiyad baa tahay hero soomaaliyeed baa tahay gabar soomaaliyeed oo geesiyad ah ilaahay ha ku xafido ilaahay ha ku daayo maxaan ku irahdaa wax wanaagsan ayaad samaysay xaqaaga ayaad dhacsatay walaalkaa qaali ah dhiiggaagi ayaa hortaada lagu bahdilayo ood ka dhiidhiday ood u dagaalantay xaqiisina usoo dhicisay caadowga xirxiranayay na aad ka sii daysay ood ka riday oo ka fujisay xaq baad ku taagnayd maasha allah tabaaraka allah waxaa weeye waxaan ku dhahayaa ilaahay ha ku daayo ilaahay ha noo kaa dhaafo adigoo kalena ilaahay ha noo badiyo geesiyad ah smart ah caqli badan maasha allah tabaaraka allah habar yar eedo waxa weye wax wanaagsan ayaa samaysay thank you so much ayaan ku leeyahay aada iyo aad baad u mahadsan tahay wiilkaas waan wada dhalay waa wiil yar oo soomaaliyeed cunug yar oo 18 jir ayay sidaa u jiidanayeen oo dambi aanu lahayn bay rabeen inay dusha ka saaraan waxay rabeen in ay xataa hadallo ka helaan ma taqaanaa iyo bay lahaayeen laakiin geesiyad baa tahay waad la fahantay you are smart gabar caqli badan ayaa tahay waxaa tiri aamus waxba ha u jawaabin maasha allah tabaaraka allah weliba waxaa iigu daran luuqadaadii baa ku hadashay soomaaligii ingilishku kumaad dhihin war yaa aamus ma aadan dhihin ingilish kumaad dhihin fariid baa tahan ku dhahay maasha allah ilaahay ha noo kaa daay ilaahay ha noo kaa dhaaf hooyana inay baqdo ma ahayn runtii lama yaabayo dadka waaweyn oo dhan oo iyagoo waaweyn yimi wadamadan baqdintaa ku badan waxaa weeye laakiin waxay xaq u leedahay inay ka baqdo ma ahayn wiilkeedoo lagu horqabsaday inay cidna u aabba yeesho ma ahayn inay ka baqdo ma ahayn waxa weeye waa maqlaay markay joog ku lahayd aad dhahaysid no mama stop aad tiri waa runta maasha allah tabaaraka allah wiilkaas abaal weyn baa ku leedahay walaalkaana weeye waad isku leedihiin abaal iyo wax walba oo wanaagsan maasha allah tabaaraka allah ilaahay ha ku xafido ilaahay ha ku daayo maxaan ku idhaha wiilkaa yarna ha is ilaaliyo adinkoo dhan is ilaaliya dhalinyarooy yaangiga dhan oo soomaaliyeed youthka yaryar dhalinyarada ha is ilaaliyaan waxa weeye wadamadan la joogo waad u jeedaan waxa weeye black ayaa tihiin sida african americanka oo kale kama duwanidin waa inaad wadataan smartphone waa inaad duubtaan maxaan ku dhahdaa wax walba oo idinla soo gudboonaada waa inaad duubtaan saad beri u heshaan proof iyo maxaan ku dhaha caddayn iyo makhraati saad u heshaan haddii kale dhibteeday leedahay waad ogtihiin historiyaal badan oo dhacay dad la iska xirxirtay oo badan ayaa jira oo madow ah oo xabsiyada long time ku jiray without sabab without reason without dembi ayna gelin dusha laga saaray marka kama duwanidin waxba marka waxaa weeye caddaankan dulmi miran weeye waad ogtihiin marka waxaa weeye ayagana sharciga kaliya ayaa kaa celin kara sharciga ayaa kaa qaban kara ay dhigteen sharcigaa kama weyna ayaga kama boodi karaan intaasaa kaa celin karta laakiin hadday jaanis yar ku helaan waa very dangerous weye waxa weeye way ka faa'iidaysanahay jaaniskaas kan ku necebna waxa weeye shaarka maxaan ku dhahdaa booliska ayuu kugu xirayaa shaarkaasu ku isticmaalayaa awoodda shaarkaasu ku isticmaalaya marka khatarteeday leedahay waa in sida gabadhaa yar smartphone la wataa waa in la duubaa wax kasta waana idin salaamayaa gabadhaan waxaan leeyahay ilaahay ha xafido ilaahay ha daayo ilaahay ha noo badiyo iyadoo kale maxaan ku idhahdaa dhalinyaradana waa inay iyadoo kale noqdaan
waa inay sideeda oo kale ay maxaan ku irahdaa isaga ceshaan waxa hadday xaq ku taagan yihiin ilaahay wuu u heelinaa ilaahay wuu u jeedaa xaq soora weeye ilaahay waa in sharcigana la bartaa sharciga waa inay dadku bartaan sharciga waa inay bartaan sharcigana waa inaanay ka baqin sharciga waa inaanay ka baqin dadku sharcigana waa inay bartaan sharciga haddaadan baran waxaa waa lagugu durdurinaya dusha lagaa maraya sidii doonaa lagaa yeelaya marka soomaaliya waa inaanu sharciga baranaa at least even luuqadda xataa waa inaanu baranaa si aan ula doodi karno waayo rasuulkeen calayhi salaatu wasalaam wuxuuna faray inaanu barano luuqadaha sababta wuxuu yidhi qofkaad luuqadiisa taqaanid waxa weeye waxyaalo badan oo maxaan ku rahdaa dhibaato ah ayaad kaga badbaadi kartaa waxyaabo badan oo dhibaato ah oo uu kula damacsan yahay ayaad ka badbaadi kartaa at least qofka hadaad luuqadiisa taqaanid waad la doodi kartaa waxa weeye marka luuqadana waa in la barto waalidiintana waa inaanay ka baqin booliska waa inay sharciga bartaan even hadday soomaali ku hadlaan oo aanay aqoonin ingilishka sharciga wadanka waa in loo turjumaa waa inay akhriyaan soomaali loogu turjumaa waa inay akhriyaan dadka wax turjumana waa inay u turjumaan sharciga dadka waaweyn waa in sharciga loo turjumaa si ay u bartaan maxaan ku rahdaa sharciga wadanka iyo maxaan ku rahdaa waxay loo u dhigay iyo waxay xaq u leeyihiin say u ogaadaan ay u bartaan waa in loo turjumaa please waxaan farayaa ummadda Soomaaliyeed ee luuqadaha kale ku hadasha dhalinyarada Soomaaliga iyo isku taqaan afafka kale inay waalidiinta u turjumaan oo u qoraan sharciga oo kadib la helo buug lagu turjumay si at least ay u bartaan dadka waaweyn sharcigaas si ay maxaan ku rahdaa ay isaga celin karaan hadhow qofka kale ee ku soo xadgudba marka waan salaamaya waxaan idin leeyahay Soomaaliya be careful meel kasta oo joogtaan waa in la digtoon yahay adduunka sidii hore ma aha adduunku waa adduun maxaan ku rahdaa la isku wada xadgudbaayo adduunku waa adduun la isku wada durdurinayo sidii maxaan ku rahdaa carootay oo kale oo maxaan ku rahdaa diday adduunku waxa weeye dadkii dhaqligooda si kale u shaqeynaya waad ogtihiin marka waan salaamayaa be careful Somali people be careful. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.